high diploma markuu barto wuxuu baranayaa all designer, wax walba inuu design gareyn karo, sida inuu wax walbo la daawacayo design gareyn karo, inuu design gareyn karo cartoon, inuu design gareyn karo guryo la dhisayo, inuu design gareyn karo website, inuu design gareyn karo wax walba oo la design gareynayo. kadib wuxuu u gudbayaa degree markuu bartana wuxuu baranayaa cartoonka sida loo design gareeyo. kadibna wuxuu u gudbayaa master markuu bartana wuxuu baranayaa sida loo design gareeyo game. marka sidaas ayuu graphicaas usii soconaya maalinta ka dambeyso. marka cashirkaaga adiga waxaa quseeya oo graphics, afarta shay ayaan soo sheegnay ee computerka lagu barto waxaa kaa quseeya graphicsna waxaa kaa quseeyo high certificate. marka waxyaabo badan oo computerka inaa hore usoo baratay lagaa rabay ayaa kasoo booday marka la fiiriyo. sababtan waxay tahay inaa fahamtid barnaamijkan oo danta aad ka leedahay. high certificate maxaa ku baranaysaa 9 barnaamij. 3 barnaamij ugu horeeya way isku xiran yihiin. 3daas barnaamij waxay kala yihiin MS Word, Graphics, MS Publish, Graphics iyo MS PowerPoint Graphics. 3daas barnaamij markaad dhameyso kadib waxaa bilaabaysaa barnaamijyo kale oo ayagana graphics loogu talagalay, kuwaasi oo kale ah barnaamijka ugu horeeyo waxaa lagu magacaabaa pagemaker. markaad dhameyso waxaa bilaabaysaa haddana photoshop markaad dhameyso kadibna waxaad dhigaysaa Coral Draw. kadib haddana 3 barnaamij ayaa haddana lagu bilaabayaa, kuwaasi oo kale ah Video Studio, ULED Video Studio, Banical Studio iyo barnaamijka ugu dambeeya oo ah Adobe Premiere Pro. 9kaas barnaamij intaa ku dhex jirto waxaa ku dhex baranaysaa 2 barnaamij oo kamerada quseeyo. marka aad barnaamijkan dhameyso meeshan waxaa lagu bilaabayaa digital camera shooting oo lagu barayo sida sawir loo shoot gareeyo. iyo meesha markaad joogtid oo aad baran doontid video camera shooting oo ah sida video loo duubo. marka 9kaas barnaamij iyo intaan markaa dhameyso waxaa qaadanaysaa certificate lagu magacaabo high certificate graphics. oo ah certificate adduunka dhan laga aqoonsan yahay oo meelo kala duwan
intii hore aan soo gudubnay waxay ku saabsaneed introduction oo ku saabsan cashirkeena ayuu ahaa. iminka waxaan u gudagelaynaa sida cashirkeenii koowaad oo ms word ah, graphics wixii kaga aadan. graphics waxaa kaga aadan sidii aad sawiro iyo waxyaabo kale ay isu dhex qori lahayd. tusaale ahaan waxaad doonaysaa sawir korkiisa inaad magac ku qorto. maxaa sameynaysaa? marka ugu horeyso insert ayaa tegaysaa, kadibna meeshaas ayaa tegaysaa oo picture ay ku qoran tahay. picture markaad dhahdid, computerka gudihiisa sawir aad hore ugu soo diyaarsatay oo aad doonaysid inaad wax ku dhex qorto ayaa soo dooranaysaa. tusaale ahaan gacantan meesha ku sawiran oo kale ayaad doonaysaa gudaheeda inaad wax ku qorto, oo meeshaas gacantaas aad meeshaas wax ku qorto. maxaa sameynaysaa? haddii aad kilig siiso waxba kuma qormayaan. sidaas daraaddeed waa inaad mar kale insert tagtaa oo aad soo doorataa calaamadaas text box ayaa la yihahdaa. text boxka ayaad soo qaadanaysaa. dhammaan text boxyaashan oo gudaha ku jiro mid walba dhinaca uu u jeereysan yahay ayuu kuugu qorayaa wixii aad kasoo doorato. laakiin adiga si aad u maamusho waxaa soo dooranaysaa meeshan hoose ay ku qoran tahay draw text box, kadibna gacanta meesha aad rabto inaad wax ku qorto ama sawirka ayaa ku dhex jooreynaysaa. markaad sameysa kadib right click ayaa dhahaysaa gacanta dusheeda, meesha qoraalka aad sameysay gudihiisa ayaa right click dhahaysaa, kadibna waxaad dooranaysaa edit text. farta ayaa weyneyn kartaa oo aad wax ku qoraysid. home ayaa tegaysaa marka hore. size-ka meesha farta laga weynay waa meeshaas. hadda farta kuu dooran waa E11, waxaan ka dhigayaa 20, kadibna meeshaas ayaan ku qorayaa wixii aan doono. ile waxa aan qorayo sababta ma ahan, laakiinse sababta waxa waaye inaan sawir gudihiisa wax ku qori karo inaad fahamtid. gacanta muuse ayaan ku qoray, kadibna santag ayaa ka dhigi kartaa qoraalkaas. farta ku qoran waa sii badbedeli kartaa adigoo dooranayso meeshaas kore. kilig ayaad siinaysaa, farta rabtid ayaa kasoo dooranaysaa far qurux badan si aa u geliso. fartan waxaan soo doortay Algeria lagu magacaabo. ilaa hadda waa la dareemayaa qoraalka in uu markaas uu ku jiro meel box uu ku jiro. si aad boxkan uga saartid, boxka ayaad dooranaysaa, calaamada boxka ayaad dooranaysaa, kadibna waxaad tegaysaa korkaas kore ee format ay ku qoran tahay. laba line ayaa meeshan ku qoran. kor waxaa ku qoran shape fill, hoosna waxaa ku qoran shape outline. shape fillka waa fiilka qoraalka meesha ku qoran yahay dusheeda dambe ee cad waaye. inaad ka bixiso markaa rabtid tigta geeska klik siinaysaa, no fill ayaad dhahaysaa. no fill markaad dhahdid kadibna wuu ka baxayaa qoraalkii. hadda waxaa kusoo harta xariiqinta madow ee ku wareegsan. si xariiqintaas madow aa uga saarta waxaad tegaysaa shape outline mar kale, ayadana waxaad dhahaysaa no outline, kadibna labadooda sidaas ayay uga baxayaan. qoraal toos ayaa soo haray. fartan kalarka ee madow waa bedeli kartaa, kalarkaa rabtid ayaad dooran kartaa adigoo dooranaysid meeshaan ee ayda ku qoran tahay. horaan waxaa usoo isticmaalnay insert, home, format. macnaha home iyo insert iyo waxaan ay ku fadhiyaan waa taqaanaa haddii aad horey usoo baratay packages. haddii aadan soo baranna su-aalishaas waa ina soo weydiin kartaa si aan kaaga soo jawaabno. si aad kalarkan u bedesho marka kalarkaa rabtid ayaa ka dhigaysa. aniga waxaan ka dhigayaa weight. sidaas ayay gacantii ay ugu qoran tahay qoraal. marka sawir kasta aad sawirayso gudihiisa sidaas ayaa ugu qori kartaa. waxaa kaloo oo isla barnaamijkan soo dhexgalayo inaad calaamado aad sawir dhexgeliso. example, insert ayaa tegaysaa, ship ayaa tegaysaa. tusaale ahaan waxaa rabtaa love oo kale, calaamada loveka inaad sawir geliso. lovekan ayaa soo qaadanaysaa. oodshida shibisal waxaa shibiskan kasta aad soo qaadatay sawir waa dhexgelin kartaa. marka meeshaan ayaa ku jooreynaysaa. markaa ku jooreyso kadib gacanta ayaa u dhiibi kartaa haddaa rabtid, kadibna
gabadhan sawirkeeda inaan geliya ayaan doonayaa. sawirka gabadha ayaad dooranaysaa, kadibna insert ayaad dhehaysaa. sawirka gadaal ayuu maray. marka hore waa inaad doorataa calaamadan, kadibna image aad dhahdaa, kadibna gabadha sawirkeeda aad soo doorataa, qofka aad rabta sawirkiisa inaad geliso. haddii uu sidaan hadda uu iga diido oo kale, haddii uu kaaga diido, waxaad samayn kartaa gabadha sawirkeeda inaad dooratid, format aad dhahdid, dib inaad ka gelisid, insert aad dhahdid, ship aad dhahdid, kadibna aad dooratid. marka hore format inaad dhahdid oo frame aad geliso. framekan oo kale gabadha sawirkeeda markuu soo galo, kadib inaad dhahdid insert picture effect. meeshaan ayay ku jiraan shibyaal badan oo midkaa rabtid aad ka dhigi kartid. kadib gacanta iyo sawirka way kala durgeen. si aad isugu soo dhaweyso red click ayaad dhahaysaa, waxaad tegaysaa meeshaas ay ku qoran tahay wrap text infront text ayaa leedahay, toos ayaa gacanta ugu dhiibeysaa sawirkaas. waxaa loo maleeyaa hadda gacanta muuse oo gabar sawirkeeda saas u haysto. marka intaas waxaan kusoo gabagabeyneynaa cashirkeeni koowaad ee maanta ee ku saabsan graphics MS Word. cashirka labaad ayaanu gudbi doonaa.